السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي هبون داوday ilaantii meel ka soo naga daawanaysan codkayga iyo muuqayga ka soo gaadhayo waa barnaamijkeena Rabadaanta TV-ga guuraha ka daawan jiray degmada Garadag. Haatan waxaan la socodsiin doonaa aniga Cabdiraxmaan Saciid Xasan. Iminka yaa tarku soo dhawaada. Iminkana haatan waxaan yeeriyaa tartamaha koobaad Ilaa Axmed haduu fadhiya soo kac saacna lagu soo dhaweeyay. السلام عليكم إلى كسر TV-ga gurgura oo ana ku weydiino dadka su'aalo iyo haliyada lagu siiyo waxaad qabtay waxaad ka shaqaysid. ما شاء الله ولو هاي TV-ga يعني لaba sano ka hor bay soo maray TV-ga gurgura aad iyo aad baa mahadsantihiin jigitaan iyo dhalinyarada badan ee ka soo qayb gashay qorcas iyo aan hadda ka garanayo iyo Shaaficiyada iyo Xasan Kaagaadid iyo Maxamed Jaamac aad iyo aad baan hambalyeynaya iyo ninkii dheeraynaya Yaasiin baahin iyo dhammaantiin waa islaamaya maxaa cilmi u dhalay aad iyo aad baan idin soo dhaweynaya su'aalaha waqti waabaya إلا waxaad qabtay waxaad ka shaqaysid. waxaan qabtaa anigu waxaan ahay wasaaradda hay'adda dibadejinta iyo qaxootiga iyo barakacayaasha dadka dhex gala ogaada xaaladooda la socda nidaamadooda markaa shaqadaydu barofeshinkaygu waa sidaan degmada u joogaa waxaan ahay nin ku dhashay gurigu ku dhalay baan ahay anigu maasha Allah. Iminka yaatana su'aalihii baan ku bilaabayaa waxaan filayaa inaad barnaamijka hore soo daawatay in la socotid haddaad ka jawaabto waxaan weydiinaa dadka si xilada ka jawaabto waxay leedahay iyadoo dhameystiran uu TV-ga gurguraad ku leedahay su'aalaha ku bilaa su'aasha koowaad waxa koonaysa magaalada qure ee aan la gaarin doorashada ee haddana soddonka xildhibaan leh waa magaalada qure ee doorashada gaarin ee maraya soddonka xildhibaan waa ba burco ta cirif weyn ja garaday xa midnaba igu celi magaalada qure ee weli doorashada gaadhay ee maraysa soddonka xildhibaan waa magaalada qure ee weli doorashada gaadhay ee maraysa soddonka xildhibaan waa ba burco ta cilif weyn ja garaday xa dhammaan su-aasha haddii aan isku eego ama qiyaaso doorashooyinka hadda xildhibaanada aynu soo gaadhin deegaan kasta waa badan yihiin laakiin markaan anigu kuwa degmada garadag aan hayo iyo kuwa degmada cilif weyn yaa waxaa 3 jeer badan kuwa garadag waa garadag ila sanadka ma oran kartaa waa sharax saadu anigu ma yeesho oran karo dad doorashadiiba dad badan baa wadeedo boqolaal baa wada sharaxanay waxaad oran markaa waa ja oo garadaga haddii loo dacalkan fadhiday meeshan ma jirtay ma sii daasida xaafadda ay su'aasay barakacayaashaadii oo aan ku noqonaya aad ku noqonaysa wariyaa aan wax ku adkaysanaya garadag jawaabta su'aashaas sidaas ay ku tahay sax madaxweynaha qure ee ka qayb gali jiray meherka waxa uu ahaa madaxweynaha qure ee ka qayb gali jiray meherka waxa uu ahaa ba madaxweyne Daariyaale ta madaxweyne Ciro ja madaxweyne Muuse xa midnaba igu celi su'aasha madaxweynaha qure ee ka qayb gali jiray meherada waxa uu ahaa ba madaxweyne Daariyaale ta madaxweyne Ciro ja madaxweyne Muuse xa midnaba bismillaahir rahmaanir rahiim haddaan saddexda madaxweyne aan eego cidda ka qayb geli jirtay su-aashayda aad igu tiri ba madaxweyne Riyaale iyo ta madaxweyne Ciro iyo ja madaxweyne Muuse waa madaxweyne Muuse waa jawaabta su-aasha oo madaxweyne Muuse ma oran karaa meher badan buu ka qayb galay Djibouti ma wada oo meherka ka qayb galay kule anigu inta hadee garanayo dowladda Riyaalana meherka ba lagama qayb gali jirin marka waa jawaab madaxweyne Muuse jawaabta su'aashaasina jawaabta su'aasha sax ama qalad ama sax jawaabta su'aasha sidaas ay ku tahay sax TV-ga guura ila musharaxiinta isaga ka waran laga yaabo inaad sharxo golaha kaliya tigsato ma sharaxanay golaha kaliya sharaxanay waliba xisbiga ka haba ka sharaxanay weeye su'aashaas saddexaad waxa koraysa ilo madaxweynaha qure ee dadka masaajidka ka soo caayi jiray waxa uu ahaa madaxweynaha qure ee dadka masaajidka ka soo caayi jiray waxa uu ba madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ta madaxweyne Ciro ja madaxweyne Xasan Sheekh xa midnaba bismillaahir rahmaanir rahiim maxaad igu tiri igu celi madaxweynaha masaajidka dadka soo caayi jiray madaxweynaha qure ee dadka masaajidka ka soo caayi jiray waxa uu ahaa ba madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ta madaxweyne Ciro xa madaxweyne Xasan Sheekh ja midnaba
markaan isku dayo su-aashayda madaxweynaha ka socay jiray masaajidka dadka wuxuu ahaa xasan sheekh. xasan sheekh ah ka firsay waa meel xasaasi marana su-aasha ugu dambaysa meeshii dharka iyo dadmaska baad helaysaa oo ma ku leeyahay inaan weydiiyo dhalinyarada hal baad leedahay fursad hal fursad baan leeyahay halkan fursad waxaa u dhiibtay daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena waa markii koowaad aan idiin baana waxaan meenaa meel xasaasi ah su-aashan saddexaad haddaad taa garaseen wuxuu leeyahay helaya dharka iyo dhamaystiran qofkii garanaya kas jawaabi karana su-aashan waxaad oranaysaa madaxweynaha quliya dadka masaajid ka soo caayi jira waxa waa ba madaxweyne ismaaciil cumar gele ta madaxweyne ciro ja madaxweyne xasan sheekh xa midnaba imisaale waa madaxweyne ismaaciil cumar gele imisaale waa madaxweyne ciro imisaale waa madaxweyne xasan sheekh imisaale ja midnaba ilaan isku soo laaban go-aankan adiga ale madaxweyne ismaaciil cidna may oran halkii madaxweyne cirona ay tiri 2 qof halkii xasan sheekhna tiri dad kor u dhaafaya 3 qof ku sheegeen halkii midnaba cidnaan dooran xasan sheekh baan ku arkay dadka badan bay raaceen dadka badan baa raacaya hadday ku khaldaan dadka badan idinku was raacsanayeen waana israacno jawaabta su-aashaas leegina jawaabta su-aashuna adii go-aanka ugu dambeeya mayal go-aankaygu xasan sheekh su-aasha jawaabtaas leegina jawaab su-aashuna sax ama qalad jawaabta su-aasha sidaas ay ku tahay sax hambaliyo ilaa hambaliyo waxaad ku guuraysay dhadhiidoo dhammaystiran xaggaan talo ugu hagaagaya maxaad ku leedahay tv-ga guguuray isagaana kugu soo hagaajinaya meel daawadayaashuna saxyaga maxaad leedahay daawashayaashu aad iyo aad bay umahadsan yihiin waana soo dhaweynaynaa xisbiga ka iyo waad ka sharxantana maxaad fariin u diraysaa waxaan u dirayaa maxamed xaashi inuu usoo baxo gobolada bariga si uu xaaladaha iyo u ogaado duruufaha ka taagan guddoomiye waa inaad soo baxdaa dee xilkaana waxaan u sharaxanahay guddoomiye weli hore ismayna arage xubinta qure baarlamaanka golaha baarlamaanka ee somalilan ee degmada galbeed